shaqooyi baday haddaan ku soo bandhigo xubnaha boqolkiiba boqol maxaad igu baasan tahay oy sidii jidhiga baxaad naftayda ku beeran tahay bartuu dhiigaygu maro cadaa bartankeeda degi bartuu dhiigaygu maro cadaa bartankeeda degi meel walba aad joogtaan aad baan idin wada salaameynaa si wada jira sida la idin sheegay showga waa 5 bisha sabti habeen axad ay soo galayso qiimaha sida la idin sheegay waa 2,000 oo lacagta wadankan Kenya oo u dhiganta $20 sidaas oo ay tahay teamka hogaaminaya showga qaban qaabinaya markii ay fiiriyeen dhalinta ku dhaqan magaalada Nairobi taageerayaasha jecel Khalid Kamil showgiisa inay ka qayb galaan markii dhinacyo badan laga eegay dhaqaale yarida iyo waliba marxaladda coronavirus-ka uu ku reebay adduunka oo dhan waxa la isla gartay showga ayada uu yahay lacagta lagu galayo 2,000 oo Kenyani ah haddana inay jirto dhalinyarada baahidooda ayadoo la fiirinayo 4 qof ee wada socota in qof uu free ku galayo saddexda kale lacagtooda la bixinayo markaas taageerihii Khalid Kamil u yimid anagoo fiirinayna inuu qofkii uu jeclaa showgiisa uu ka qayb galo anigu waxaan rabay kaliya inaan muxuu ahaa mar kale idin xusuusiyo taariikhda iyo qiimaha waxaan jecelnahay habeenkan aniga naftirkeyga leenka fanaaniinta ku jira halkoo heesa ku tuuri raba Khalid Kamil ana isla qaadi rabno shirkada afar isku soo wada raacaan muxuu ahaa 4 qofood ee wada socoto 3 qof ayaa lacagtooda laga qaadaya hal qof ayaa free hadii arintaas ay idin sheegno ayadoo fanaanka uu codsado taana waxaa loogu talagalay in la dhiirigeliyo taageerayaasha isla markaana la fiiriyo dhaqaale yarida xilligan taagan ay jirto aad baa idin wada salaameynaa habeenka sabtida oo axad ay soo galayso 5 bisha Maarso waxaan ku wareejinayaa Big Baro assalaamu calaykum asxaabta waa in salaam meel walba joogtaan waxaan idin ogeysiinaynaa mise waxa halkan u taaganahay dhammaan fanaaniinta reer Nairobi iyo fanaaniin kale oo marti ah saa u jeedaan waxa jiro showgii qarniga showgii walaalkeen Khalid Kamil oo aad aragtay maan hore eelbarkan ku soo dhaweynay haddana waxaan u taaganahay inaan shaacino showgii hadduu ilaa yiraahdo wuxuu dhacayaa taariikh 5 sabtida hadduu ilaa yiraahdo sabtidan soo socoto de maalinta jaceelka lama dhigin asaa loo baajiyay asaga la rabay inuu qabto laakiin arrimo awgeed hadeer noo imaaday boqorka qeyrada boqorka codka insha Allah hadduu ilaa yiraahdo de labo habeenkaasi de waxa habeenkii jaceelkan dhihi karaa habeenkaasi yaa la moogaanin fanaaniin badan baa qaarna ay maqan yihiin ay cudur daarteen baa imaan doono insha Allah hadduu ilaa yiraahdo xalaalo socdo tikidhadana sidoo kale waxaad ka helaysaan maartay shaashadan ku soo qoreen hadduu ilaa yiraahdo 2,000 shilin waaye waa $20 de fanaankeena $20 ka badan buu u qalmaa laakiin reer Nairobi inuu waqti la qaato ayuu rabaa reer Nairobi wax lagu yaqaanay gobonnimadii iyo sidii la idinku yaqaanay u soo baxa waxaan ku wareejinayaa fanaankeyga qaaliga Xasan Gantaal xarigiisa iga qaba admiga cid kale kuma xurmeeyeen in arka caliya balkan yar way dhageysanaya Soomaa aad iyo aad baan u salaamayaa dhamaan inta imika ay daawanayso iyo inta ay daawan doontaba waxaan la socodsiinayaa bulshada reer Nairobi gaar ahaan bulshada Soomaalida inuu jiro showga ugu showyada ugu shidnaa taariikh 5 weeyaan waxa weeye sidii dayax 15 dadku u wada siraadanaya asxaabta qiimaha leh waxaan reer Nairobi la socodsiinayaa inuu showga inoo hibeeyay walaalkeen Khalid Kamil oo inoo soo bandhigi doono suugaantii macaaneyd uu sida awal bay noola wadaag jiray soo naga maqan dhamaantiin soo dhawaada waxaan leeyahay macluumaadka waxay nala socodsiin doonaa asxaabta iga xoogaalsan aad baan idin salaamayaa habeenkaas waxaan qaadi doonaa anigu hees cusub oo wali qaadin iyo intii aad iga taqaaneen iyo oo hore isaguna waxaan oran doonaa waliba iigu tuur hees la oran jiray xafladii guurka la gaaray oo de dadku waxay u baahan yihiin in isgurgursadaan oo nolosha waxa weeye talaabo hor dhiirigelintu wax muhiim ah weey marka waxa nagu dhiirigeliyay xafladii guurka la gaaray nagu yiri guurkii anigu waan bilaabay alxamdulillah hadda joogo isku qotontaa moogta asxaabta idaawanaysan waxaan leeyahay sidaas leeg
way dhiirigelinayaa hawsha hore u socda habeenkaas baan ummadda lamaanayaasha isku darana oo wada heesina insha Allah aad u maasantahay sidoo kale waxaan siinayaa dhinacaasan kasoo bilaabaya hal noqda waxaan siinayaa fanaanka ayaan la jeer ayaan aad baan salaamay dhammaan daawadayaasha ku xiran inta cameraman meeshan taagan qof walba janalkiisa waxaan halkan kusoo dhaweynayaa anagoo dhan aan kusoo dhaweynaynaa fanaankiin aad u weyn fanaankiin aad u qiimo badan qalad kaamil oo dabcan bulshada Soomaaliyeed ay taqaano heerku maanta taagan yahay iyo maxaa la jiray heesihiisa meesha taagan yihiin oo la yiraahdo soo saaxiib walaalkii mise my brother marna saaxiibkii Xasan Kantaal hore u sheegay boqorka qiirada Soomaaliyeed oo taqaano my brother waxaan ku leeyahay welcome to Nairobi insha Allah habeenka soo noqon doonaa habeenada ka duwan wixii faahfaahinna insha Allah waxa waa big bro baa idin sheegay waxaan idin leeyahay wixii Nairobi joogo habeenkaas yaa kala mogaan welcome baa idin leeyahay kulligiin soo dhawaad yaa kala mogaan manka DJ manka hal labo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Soomaaliyeed meel walba dunida dacalada ka joogteen waan salaamay kasoo ku meesha waxa u wada taagnaa kulligeena waa fanaankeena Soomaaliyeed Khalid Kaamil iyo showgiisa maalinta ayaa la moogaanina aad iyo aad u maasantahay warka kulli wax soo gabagabeyn doono Khalid Kaamil laakiin Khalid Kaamil intaan siinin waxaan siinayaa alfanaan Axmed Rasta aad baan idin salaamaya asxaabta muuqayga iyo magacayga taqaano intaan aqoon barasho wanaagsan waa anigu Axmed Rasta waxaan idin leeyahay caawa waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno fanaan ugu qaali ah boqorkii jacaylka boqorkii qeyrada oo markii ugu horeysay uu ku qaban doono xaflad Nairobi waa taqaanaan waa magaaladii jacaylka habeenka jacaylka inay u dabaaldegto habeenka jacaylka ma la joogo laakiin habeen dambaan ka dhiganaynaa saardeedan soo socoto oo bisha shanteeda ah dib aan soo ceshanaynaa jacaylku nagama dhamaanayo annaga dhan fanaaniinteenana heesii jacaylka inaan soo bandhignaa diyaar u nahay marka yaa la moogaan waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay nasiib xalay Bashir mal baa anigana Bashir baan ku soo wareejinayaa Bashir ay sii wareejiya asxaabta qaaliga aad iyo aad baan idin salaamaynaa salaan kadib waa la hadlay oo waxa weeye hore baa loo hadlay oo fanaaniintii iga horreysay baa hore u hadashay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad aan leenahay soo dhawow walaalkana Khalid Kaamil codka boqorka Soomaaliyeed waxaan idin sheegaynaa in showgiisi ay tahay taariikh 5 sargaasdom lagu dhigayo qiimahana walaalkiisu idin sheegay big bro qiimo idin raaligelinaya weeye marka waxaan idinla socodsiinaynaa in habeenkii inaa u kala maqnaanin oo si fiican loo soo degdego welibana haye mikrofoonka waxaan ku wareejinay adeerka nasiib wareer Nairobi aad ayaan idin salaamay waxaan idin leeyahay maalinkaas yuusan idin maartay waxa mogaanina boqorka codka aniga aan aaminsanahay aniga nasiiba reer Nairobi kulli waa qulubtan iskala soconaa maalinkaas ala yimaado showga hadalku sii dheeraan maayo intii kulli aan dhihi lahaa hore ay u soo yiraahdeen walaalihii fanaaniinta iyo dhammaan ma taqaanaa waxaan asxaabta waxaan ku wareejinayaa big bro fanaaniinta halkan ila taagan iyo dhammaan asxaabta iyo bulshada Soomaaliyeed laga beerayaa noo sheeg horta qofka laga baydhay gabadh daraawiish ahayd hawa badayde ka baydha bala laga dhowriye ka baydha daraawiish barweeye ka baydha boolay u dhalatay ka baye lascanay u dhalatay ka baydha oo talaxbay u dhalatay ka baydha sakuuridka ilaa iyo maartay tikadhada wax kala xiriiraysiin anaa igala soo xiriiri kartiin samiixa qalil kala xiriiri kartiin Jamaal Cadaawe sidoo kale walaalkay xirsi kala xiriiri kartiin ma boqortooyo Xasan Kantaal laftirkiisa qof walba tikadhada kala xiriiri kartiin marka insha Allah tikadhada available way diyaarsan yihiin yaa la moogaanin insha Allah ugu dambeysna barnaamijka waxna soo gabagabeynaa u dhiibayaa alfanaan Khalid Kaamil hal ilaw ugu horeyn waxaa mahad iskale ilaahay
oo intanoo maxay dee ragoo maxay boqoraa isugu kala keenay meeshan maasha allah aan ugu horeysiiyo dee inta fanaaniinta maxay dee number 1 ninkan ugu weyn da ahaan ma aha in yar buu maxay dee xoog uu naga soo yar hor dhaca Axmed Rasta Xasan Gataal Nasiib Bashir Jaawi ayaan le maasha allah iyo fanaaniinta kale oo door daateen oo show iman doonaan Big Bro Cabdiqaadir Koronto ayaan aad ugu mahadcelinayaa bulshooy deesaasad nolol soconaysa insha Allah hadal wala dhameeyay aad u weyn wayno habeenkaas insha Allah iyo heeso cusub waliba waan duuli doonaa aan halkan maanta caawa aan halkan la joogin nagala soo qayb galin maxay tahay barnaamijkan shaacinta ku saabsan iyagana waan cudur daareenaa kulli waan ku soo qayb gali doonaa insha Allah dawooyinka bulsho habeenkaas inuu wada caawin doonaa insha Allah iyo shanta shaqooy baday haddaan ku soo bandhigo xubnaha boqolkiiba boqol maxaad igu baasan tahay ooy sidii jiriga baxaad naftayda ku beeran tahay bartuu dhigaygu maro cadaa bartankeeda degi bartuu dhigaygu maro cadaa bartankeeda degi wada qeyraadnay naga daay bartaas ku keesi aad u maasan tahay kaameramanada way maadsiin dhamaan asxaabta aad u maasantiin insha Allah xiligaas inoo balanna yaa la moogaanin aad u maasantiin 5 bisha sarakaasi dom iyo security iyo fanaaniinta dhan waa la wada dhan yahay iyo inta maqan insha Allah aad u maasantiin security meel magaciid miya